عقاشة salaadiinta odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka bahda maanta isugu timi madashan dhamaan waad salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deegaan walbo Soomaaliyeed shir noocana ka socda dadku hal su'aal bay isweydiinayaan qababa wuxuu oran jiray dadka waa la kala soocaya caabud iyo gal qofkuma wuxuu noqonayaa qof xor ah mise qof la haysto ooshu ama beeshu ma waxay noqonaysaa mid xor ah mise mid la haysto aan markaa taariikhda yar dib ugu noqon hore markii ay qaraadhay ee gumaystuhu uu soo istaagay cirifyada badaha bahda maanta halkan ku kulantay labadii gumaysiba waxay ahaayeen dadkii iska caabiyey ama boqortooyadii deegaamada ha noqoto ama deegaanada kale ha noqoto ama Sheekh Bashiir ha noqdo ama Omar ha noqdo ama raggii suugaanta ee timacadii lahaa ha noqdaan kan dambana markii ay qaraaraatay marba cadowga ku soo duulo Soomaalida nimankan khawaarijta ah diintii sida khaldan u turjumay ee muslimka laynaya maanta tay geysteen la og yahay waxa la yiri meyd maxaa u dambeeyay waxa la yiri ka la siisido Allah uu boogadaya inta dhaawaca intii dhimatana ha u naxariisto beled weyn waxa caawa ka dhacay waad ogtihiin laakiin waa dhamaadkii rafadka weey inay dhamaanayso arrintaas bay cadeynaysaa Soomaali meel ay joogtaba waxaan rabaa inay warkayga dhageystaan walaalayaalow waqooyiga soo Soomaali ma degto Puntland soo Soomaali ma degto Dhuusamareeb iyo Cadaado iyo Gurayceel iyo Xeraale ma dawlad baa difaacday dadkaas soo iyagu iskama caabin wax meel walba oo iska caabiday nimanka waxa deked ka furan berbera iyo Boosaaso iyo tan cusub ee la dhisay la yiraahdo Garacad waxa deked ka furan iyo waxa baa mushtarak ka socda iyo waxa iskuul ka furan meeshii nabada soo moogidin nin walba degmadaada inta keenso marka sidii iska da airport ay maraakiib ay ugu soo xirmi lahaayeen baa la iska rabaa niman yahow deegaanada Soomaaliyeed laba u kala baxayaan kuwa heeriyada iska tuura iyo kuwa suga ilaa inta la soo gaaray heeriyada la iska tuura la rabaa naftu wuxuu yiri cilmi hagar wuxuu yiri dhereg gunnimo leh gaajo gobonimo leh baa dhaanta wuu dhintay laakiin maanta Soomaa wada taqaanaan deegaanada meed maqli jirteen rag dhiigoodi baad ku barateen kuwa idinka maqanna waa inaad idinku nafta hurtaan waxa la rabaa dawladdu inay idin garab istaagto oo wixii idinka maqan ay idin ribaadi goobto soo inay dawlad dhamaystiran oo dhaqaale haysato noqoto maaha hospitaalka marka referral hospital bay u baahan tahay waday u baahan tahay waxay u baahan tahay garoon waxay u baahan tahay daryeel caafimaad waxay u baahan tahay shaqo abuur inta soo dhami waxay ku imanayaan dawlad iyo shacab iska shaqeey dawladnimadu dadka dhex taala dadkiina cadow baa haysta dadka cadowga ha laga soo faramaroojiyo uguma badiso qof Soomaaliya madaxweynuhu sidoo sheegay oo ay ugu badiso inuu cadowga dugsada ma jiro bal umadu way iska wada saaraysaa idinka iyadu ku soo haray dadku way iska wada saarayaan idinka iyadu ku soo haray lama yeeli doono oday dhaqameed iyo qof kale oo si dadban iyo si toosaba ugu shaqeeya cadawga consequence bay yeelanaysaa arrintaana yaan loo daymalaa